koowaad guud galeena abaayo sidee uga aargoosan karaa ninkayga. su-aasha labaad waxay ahayd gabar ayaa waxay soo weydiisay abaayo ninkii qabo aad ayuu ii dhibaateeyay, nolol adagna waa soo maray, dhibaatooyin badanna waa kala kulmay, waxaasoo idilna waxaa u baahanahay inaan hilmaamo, sideen ku hilmaami karaa. abaayo kale waxay soo weydiisay maseer ka badan qoyska wuxuu u dhibo. abaayo ka waran calaaqada ama relationshipka labada qofood waqti dheer qaato ilaa iyo sanado badan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالية سو دوادا ومقال كيني لوات سؤال ويدينتا أن كري جوابايو لب سؤال أو حماسط له أو أت مركل يسوي دي أن حغير لا يابا ياجرو لب سؤال وحي كليهين سؤال شكو هذا وجود قلينا أبايو سيدي uga aargoosan karaa ninkayga wuu idhibay. gabadhaas aad u mahadsan tahay, waxaan rajeynayaa inay su-aasheeda jawaabteeda sida ugu habooneed ugu jawaabo. horta marka hore sheeka idin sheegaya sheeko waxaa jiri hadda ka hor gabar ayaa waxaa aad u dhibay sodohdeeda, way xakaarisay, way dhibtay, nafta u keentay gabadhii, wax walba ay sameyso islaanta nafta u keentay. marka dambe gabadhii waxay go'aansatay islaanta inay ka taqulusto qaas ayada dhanba ay disho. farmashiya timaaday ninay u timid waxay tiri aniga sodohdeeda ay dhibtay nafta ay keentay, waxa ka codsanaa daawo aan ku dilo oo ku sameeyo isii. ninka farmashiya wuxuu ahaa nin aad u caqli badan, daawo u soo qoray, wuxuuna dhahay daawadan waxay u baahan tahay qofka 40 beri in maxay ahaatee aadan ka xanaajinin, oo yani wax walba oo wanaag ah ee ku farxaysan aa u samaysid si aysan u xanaaqin. haddii xanaaqdo daawadaas saameynta ee sameyn lahayd way burburaysaa, wax يعني dhibaatana qofka uma geysanayso. 40kaas beri waxaa loo baahan yahay daawadaas inay si saxsan u qaadato subax walbo ilaa ay habeenkiina inay ahaato qof faraxsan. si ay u faraxdana waxaa ku qasban tahay inaa wax walba oo wanaag ah u sameyn kartid aa u samaysid. gabadhi sidii ku soo baxday daawadii soo qaadatay subax walba quraac qatar ay u samaysaa, sodohdeeda u geysaa, way koolkoolisaa, aaday maxay ahaatay ugu dhawaatay. kadib waxaa dhacday gabadhii maalmihii ugu dambeeyay markii la maraayo 39 maalintaas markay maraysa gabadhii way la xumaatay, waxay aragtay sodohdeediyo yani wanaag sidii ay ka filaysay si ka balaaran oo la dhaqmayso wanaajinayso, yani soo dhawaatay ayadana oo isbedeshay totally 100% way isbedeshay sodohdii. gabadhii yani way qaadan weysa arintii sodohdii sidii isku bedeshay. waxay u soo laabatay ninkii farmashiyaha waxayna ku tiri niyahow sodohdeeda aad u jecelahay, wayna ii wanaagsan tahay, dabeecadeedina way isbedeshay, man rabi inay maxay ahayd iga dhimato, waxaa ka rabaa daawo oo sodohdeeda aan siiyo, daawadii horena meesha ka bixiso oo yani effectigeedii meesha ka saarto. ninku wuxuu dhahay marka horeba kumaanan siinin daawo ama sun, waxaa ku siiyay biyo. hadafkan wuxuu ahaa qof walba oo ku dhibaateeyo waxaad uga aargoosan kartaa inaad wanaajisid. يعني wanaag marka qofkan aan si uu ku xumeeyo aa wanaag ugu bedeshid, waxa kaliya oo gubaayo waxa waaye wanaagaased aa u sameynaysid totally wuu isku bedelayaa. ciqaabtiisana waxa ugu filan oo kaliya inaad wanaajisid. hadafka sheekada aa idinku sheegayn waxay tahay qof walba oo ku xumeeyo wanaag ugu bedel, wanaagaas aa ugu bedeshid ciqaabna waa u tahay, isla markaasna tarbiyana u tahay. qofka dabeecadiisa way isbedelaysaa iyo waxyaabaha aad ka filaysid wax wanaagsan noqon doonaan insha Allah. su-aasha labaad waxay ahayd gabar ayaa waxay soo weydiisay abaayo ninkii qabo aad ayuu ii dhibaateeyay, nolol adagna waa soo maray, dhibaatooyin badanna waa kala kulmay, waxaasoo idilna waxaa u baahanahay inaan hilmaamo, sideen ku hilmaami karaa. okay waxaa idin sheegaya ayadana sheeko kale. hadda ka hor ayadana waxaa jiray wiil ayaa wuxuu aad u jeclaaday gabar. markuu gabadhii jeclaaday uu ka helay hooyadiis ayuu u dirsaday
gabadhii marka hooyadii u tagtay waxay tiri Monday wiilkaygu ku jecel yahay uu ku rabaa uu ku doondoonaya ma fahamtay wax la qabo gabadhi waxay tiri wiilkaagu ma rabiyaha okay waxaa ka rabaa in uu 5 salaadood uu masjid ku soo dugto muddo 40 beri 40kaas beri mar walba ku soo celcelinayo waxa waaye waa waqtiga uu qofka uu kala qabsanayo howl walba uu qabanayo ay ugu noqonayso routine hadhow automatically qofka waxa uu sameeynaa 40 beri hada caado ku celcelisid caadadaas waxay noqotaa caado adiga aad leedahay waxay tiri marka 40 beri waa inuu 5 salaad masjid ku soo tugtaa habeenkii salaatu leyl tugtaa quraankan subax walba oo akhristaa haduu inta 40 beri sameeyo aniga diyaar ah wahay wiilka sidii loo sheegay sidii uu sameeyay 40 beri markii sheekada ay ka soo wareegatay hooyadii yaa wiilka u noqotay waxay tiri hay wiilkaygiyo ka waran gabadhii ma aadna jecleed ma doonana hooyo wuxuu yiri bis waay marabi mana u baahni marka la weydiiyay sababtan waxay tahay yani dareenkaas dhan waa iga baxay oo dhahay hadafka sheekadaanayta ama ujeedka sheekadana waxay tahay mar walba oo qofka ilaah isku xiro mar walba oo niyadiisa ka saaro adoomada iyo wax walba oo dhibaato ah oo ku hareereysan ma fahamtay farxadan ilaahay qalbigiisa ku camiraa hadaysan jirin xitaa asbaab uu ku farxo oo nolosha ka jirto laakiin ilaahay wuxuu ka dhigaa qof mar walba farxsan waxaan keenayo dhawaanshaha qofka uu ilaahay u dhow yahay hadaba abaadin waxaan kuula talin lahaa ilaahay inaad isku xirtid cibaadadaadana aabadisid waxyaabahaas oo dhan waxay ku noqon doonaan waxyaabo oo aad u yar oo micna agtaada ag sameynaynin labada su'aal ay ahaayeen labada su'aal ay abaayooyin soo weydiiyay maxaa jira gabdho badan oo ayagana aaminsan ama su'aalahaas qabaan gabar walba oo Soomaaliyeed oo dareemaysa dareenkaas ayadana waxaan rajeynayaa inuu video aan u noqdo video ayada wax u tar leh su'aalaha aad qabtiin oo soo weydiin kartiin gabadha ugu dambaysan waxay tiri abaayo ninka seeloonaca nin aan jeclaa jecel caadi ah gabadhaas ii sheegtay inaan caan u baahanahay gabadhaas ayadana waxaan leeyahay ninkan inaan cid go'aankaas waxa kugu dhaliyay inaad soo qaadatid miisaanka saartid hadaa u aragtid in faa'iido uusan ku lahayn yani waxa aad ku nacday fiiri mar walba soo xasuuso mar walba soo xasuuso waxa qofkaas keenay inaan acid taasi wuxuu ku sahlaysaa qofka inaad si fudud u iloodid sidoo kale noloshaada waxaa loo baahan yahay in aad busy ka dhigtid hadaa noloshaada mashquul ka dhigtid waa awoodaa inaad hilmaamtid laakiin hadaa mar walba 24 hours guriga aad joogtid oo wax aad qabatid aysan lahayn wax aad baranaynin aad shaqaynaynin waxay keenaysaa mar walba in noloshaada ay ku mashquusho wixii uu yaraan xitaa gymka tag exercise samee murqaha ka shaqeysii waxyaabahaas oo idil waxay keenayaan in aad mashquushid maskaxdaadana ay ka baxaan wax walba oo stress okay abaay kale waxay soo weydiisay maseer ka badan qoyska wuxuu u dhibo run ahaantii maseerka waa cudur waana shaki haduu weynaado shaki isku bedelaa shakigana haduu bato wuxuu qofka ka qaadaya xasiloonida iyo nasiinada iyo waxyaabihii laga helayo qoyska oo dhan inay meesha ka baxaan waxaan kugula talin lahaa in aad iska daaweysid wixii ku keena maseerka isla markaasaytana aad ka dhigtid maseerka wax dabiici ah oo normal ku ah laakiin aanan kugu noqonin cudur ilaa iyo xadka aad joogtid ka bixiyo kugu furo tashwiish ka qaado farxadii iyo nolosha aad ku nooleedo dhan wajiyada dhanna ka soo xirxiro badanaana maseerka wuxuu kaalin weyn ka qaataa wuxuu ku jiraa ku ugu sareeya asbaabaha keeno in labada qofood ay ku kala tagaan maseerkana waxaan ku dhihi lahaa micno doonaa mar walba ha noqon qof iska maseerto iska carooto kadibna soo noqoto abaay kale waxaa soo weydiisay abaay ka waran calaaqada ama relationshipka labada qofood waqti dheer qaato ilaa iyo sanado badan qaasatan labada qof markay wada shukaansanayaan hadafka la isku shukaansado ama la iskula hadlo wuxuu yahay in la isfahmo isfahamkana wuxuu qaataa ilaa iyo 1 sano 5 bil 6 bil ugu badnaan 1 sano ilaa iyo 1 sano inafay ku tahay qofka inuu qofka kale ku fahmo waxaana wanaagsan qofka marka uu qof kale guursanayo inay ugu yaraan ama ugu badnaan 1 sano ay wada sheekaystaan kadibna ay is guursadaan calaaqo walba oo dheeraatana mar walba waxay ku dhamaataa fashil waa ihsaa'iyaad la sameeyay oo xaqiiq ah waxaan rajeynayaa marka inaad su'aalihii meeshaas ugu soo baxay aad ayaa u mahadsantihiin asxaabteyda qaaliga ah waa inoo isbuuceena xigo iyo isbuuca su'aalaha caafimaadka insha Allah isbuucan su'aalaha aad qabtiin waxa igu la wadaagi kartiin barteeda Instagramka aad ayaa u mahadsantihiin asxaabteyda qaaliga waa idin jeclahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh